Suhayb ar-Rumi radiyallahu anhu ayaa markuu hijroonayay ardul hab markuu hijroonayay Madiinatul Munawwara nimankii mushrikiintu dhaxday u galeen argaasay ku soo baxeen nin malqabeen Abu Suhayb radiyallahu anhu Aba Yahya waxay ku yiraahdeen Suhaybow adigoo sacluuka oo faqiira ayaad magaalada Makka noogu timiday waxa dhaqaale ee maanta haysatana magaalada Makka dhexdeeda ayaad ka samaysay ma waxa doonaysaa dhaqaalihii intood qaadid Makka dhexdeeda aad ka samaysay inaad Madiina la tagtid may dhaqaalaha ma qaadan kartid baa lagu yiri waa ku dilaynaa wuxuu yiri waad dilaysaan laakiin ana waan dili buur ana wuxuu ma niga dili ogaada buur dagaalkana qaana buur nin waxaana hay Roomiya leebka sida loo gana ayaan qaana haddaad idishaan waad iga tira badan tihiin laakiin anna rag baan galaafan buu ku yiri haddaad dhaqaale oo doonaysaan dhaqaalaha ana ay nisiin buu lacagteedii oo dhan waan nisiin intaan watano gacantan iniga saari magaalada Makka ee ka soo baxay wixii dhaqaale meel yaalena waa nii tilmaami laakiin dariiqa ay banayay buu ku yiri dariiqaas waayo nabigeeygi Muhammad alayhi salatu wasalaam iyo saxaabadeedii baa ka daba tagaya iimaankayga iyo diinteyda ayaan ilaalsanayaa iimaankayga iyo diinteyda wax walba aniga igala qiimo badane dariiqa ay banayay buu ku yiri mare agtooda diinta qiimo leh agtooda maxaa qiimo laha iimaanka lacagtu qiimo ma leh وهاجاك بيدادين لعقتي بقعنت كسر وكان قات مقالة مكان من الهبلايا العقبة يقول عسنا كسر فقط يقول هل كان كلا صباح لكن وضد أي بنا يبكوني رسول كيجيب أن نتجي عليه الصلاة والسلام ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله هجرة السعودان هجرة مؤبدة ماها هجرة يرو واختيار أو كوبان انتي مقنادان أي مقالة مكة كسون نغنيان ماها وهجرة مؤبدة أقل ذو ذي بيكتغيان بيروه ذي بيكتغيان تجارة ذو ذي بيكتغيان قرابة ذو ذي بيكتغيان وحي دورتين إلهي رسول قيسي دورتين وحي ودنبا وسيي وددي bay u baneeyeen markaas oo socday hal saaca gudaheed ayuu ahaa nin qaniyo malqabeena saacad kadibna wuxuu noqday nin faqiir uu noqday isagoo faqiira oo gacantiisa shilin ku jirin ayuu magaaladii Makka Madiina soo galay baa la yidhi ayaa soo dhaweeyay nabigeena Muhammad alayhi salaatu wasalaam oo muxuu nabigu ku soo dhaweeyay ربح البيع يا أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى بيعك قناعسك هذا إلهي لقى شيء واتكب عشتي النبي وكيد ما أنت لأن اختبار بوها اختبار إلهي الرسول كأردنع يا دوية هذه أردنع كلا دورة بيهيد لأن إلهي عز وجل وحو كل هامية صحابي قاس إنه يراد العقد قيمة ملقاتها لكن نبي الله محمد بان كدبتك فرها يقعد وضدها إيه بنية امتحان لأن مركز النبي يقول لي ربح البيع أبا يحيى بايع مشتركة ما أنت إلهي أدي إلهي إن الدحمري وأتكلم مع الشيب النبي يقول عليه الصلاة والسلام يا أوشيك النبي قصة العادي وحي با النبي الله أوشيك وحي ماشى قضيته أي كده عايز ومكة ودويد تلفونات زمن كان هاي سنية آلات كان أقوى اتصال الناس سريعة وحي أردن بأدوية ده مركبة أوجد بيني ما هيسن لكن جبريل بنبي كسر دقو ورمية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد مؤمنين توحى كمدة بإلهي إلهي من نفتي سي حوله سي دقاله سا كويب سنة إلهي رضيه سا وأبا يحيى أيا كمدة بلغيري صهيب الرومي بأسوس السعودة ودقاله سي كدورتي إلهي الرسول جسين ورالي قليا كدورتي لعقتو أكتو قيمة مله قبيلكو أكتو قيمة مله
dibloomku agtooda qiimo ma leh aqalladoodu agtooda qiimo ma leh dhulkoogu agtooda qiimo ma leh agtooda waxaa qiimo leh ilaahay rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam innakana maanta dhallinyaradeennu hadday cadhoodaan waxay ku cadho baxaan inay ilaahay nebiga aflagaadeeyaan ay diinta aflagaadeeyaan oo malaa'igta aflagaadeeyaan oo miyaanad ogayn niman qur'aan akhrinaya oo xufaada caydoodii in layidhi waad ku gaalowdeen munaafiqiinta iska daa diin iyo malaa'ig iyo ilaahay iyo rasuulku afka lagu taagee yaa macshara alquraa nimankii munaafiqiinta ee yidhi abaadar iyo suhayb iyo bilaal bay arkeen oo meel fadhiya weliba safar bay ahaayeenoo qaswad jihaad bay u socdeen war qoladiinnan qur'aan akhriska badan lahow baa lagu yidhi marka cuntada la cunayana maxay niga cantuuga weyn marka dagaalka la galana maxay niga fulaysan ereygaasi ka warrama waa ereygan iminka soomaalidu ay tidhaahdo haddaan culumooy cadcun mooye ciidanka haddayo xaggaa qolooyinkaygaa galbeedka ay idhaahdeen haddaan culumooy cadcun mooye ciidanka haddayo maxay ka dhigan tahay hadalka ninkaa munaafiqa uu yidhi cahdigii nebiga sal alla alay wasalam yaa macshara alquraa ururkiinan qur'aan akhriska badan lahow marka dagaal la galayana maxaa iniga fulaysan marka cuntada la cunayana maxaa iniga cantuuga weyn ereygaa iyo ereyga innaku aan leenahay isma tegin yah waa istegeen ereygaa baan la yidhi may waad gaalowdeen laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum wax cudurdaara ood sheegan kartaan ma jirta baa ilaahay ku yidhi waad gaalowdeen baa lagu yidhi iimaankiinnii kadib gaalnimaad ku dhacdeen baa lagu yidhi waad gaalowdeen famaa maxaad u malayn markaa ninka ilaahaiyo nebiga afka ku taagayana ilaahay hanu soo noqonno han toobadkeenno diintu kaftan ma gasho wamaa huwa bilhasli baa ilaahay yidhi wamaa huwa qur-aanku dheeldheel muu galaa dheeldheel ma galo ma aamana bilqur'aani man istaxalla maxaarimahu wixii qur'aanku xarrimay ninka xalaashada ilaahay iyo rasuul iyo qur-aankiisa ma aaminin baa la yidhi qur-aanku muxuu xarrimay qur-aanku beentuu xarrimay qur-aanku muxuu xarrimay gabadhu inay dhar khafiifa intay xidhato magaalada dhex marto qur-aanku uu xarrimay qur-aanku wuxuu xarrimay diinta in lagu dheeldheelo qur-aanku uu xarrimay qur-aanku muxuu xarrimay salaada inay camdan kuu dhaafto qur-aanku uu xarrimay shareecadda islaamku waxay xarrimtay ninka xalaal ka dhigta buu nebigu leeyahay ilaahay iyo rasuulkiisa iyo qur-aankiisa ma aaminin buu yidhi qofkaas ilaahay hanu soo noqonno han toobadkeenno natuub ila allah oo diinteennan islaamka han ku toosnaanno asbaabta inaad diinta ku toosnaata ku dhib yaraynaysana waa labadaa shay bay culimmadu leeyihin aliimaan iimaan dhammaystiran iimaan hadba inta iimaankaagu ziyaaday diintaadu ziyaadi iyo maaragtaane mujtamac wanaagsan maxaa laga wadaa waa bii'adda waa bulshad wanaagsan ciddaad saaxiib ka dhigatid unbaa diintooda adigana aad qaadana ogow laa tusaaxib ilaa muuminan walaa yaakul طacaamaka ilaa taqiyun baa nebigu yidhi haddaad cid la saaxiibi qofka muuminka la saaxiib buu nebigu leeyahay gabadha muuminadda ha la saaxiibto wiilka muuminka ha la saaxiibo haddii saaxiibkaagu uu yahay mid muumin oo taqwo leh xagga khayrku kuu jiidi ogow walaa yaakul طacaamaka ilaa taqiyun baa nebigu yidhi haddaad wax bixinaysidna waxaa awlaaya inaad siisa ka ilaahay ka baqaya haddaad sadaqad bixinaysid haddaad sakada bixinaysid xataa qaraabadaada haddaad wax siinaysid kuwooga alla kacabsiga la xidhiidhi oo horta wax sii limaada kan ilaahay ka baqaya waxaad siisaa ilaahay taacaddiisu u adeegsan oo wanaaggu u adeegsan haddii aad siisa laakiin kan macaasida iyo qafladda ku jira waxaad siisa ilaahay cisyaankiisu u adeegsan marka mufsidka ha taageerina saalixa ayaa la taageeraa mar walba saalix iyo faasid mufsid iyo muslix dadku waa afartaa qaybood mid waa saalix waa mid isagu wanaagsan keliya bas naftiisa u wanaajiyey
dadka kalena waxba kama gelin saalix baa la yidhaha waa saalixun linafsihi waa qofka keligii naftiisa wanaagsan wanaajiyey weeyaan midna waa muslix weeyaan naftiisana uu hagaajiyo uu toosiyey dadkana uu hagaajinayaayo wuxuu leeyahay oo khayrka kale ku soo xidhma buu leeyahay madaaristuu furayaa ummaddii buu islaaxinayaa qur-aankii buu barayaa gabdhihii buu asturka kala hadlayaa sunnadii nebigu ummadda ugu yeedhayaa masaajidda tacmiirka ugu yeedhayaa waa muslix weeyaan kaa muslixu intuu adduunyada joogana ilaahay waxa uu leeyahay halaaga soo dadajin mayno وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون با إلهي يدي وما كان ربك ليهلك القرى بظلم إلهي ربك ماها كقرية ظلم كهلاقايا أيضو إهلكيكو أيهين كودتك وناقوك كشقاينايا دتك قرية دا كنول حتى هدي شركي أي كجران هدي فساد أي كجران هدي ظلم أي كجران لكن دد مصلحين وناق أمد لدحو ريقيا أي دح جوغان dadka islaaxinaysa ay ku dhex jirto ilaahay waxa uu leeyahay halaagooga soo dadajin mayno halaagi mayno amma haddii dadku ay yidhahdaan waan wanaagsannahay annagu dadka xunna waxba nagama gelin kaas saalixa halaaga soo socda celini maayo macal isagana waa la halaagi markaas صالح يا مصلح فاسد يا مفسد فاسد كنا waa ka naftiisa uu fasaadiyey mufsid kuna waa kan ummadda fasaadka la dhex socda balaayada qayliyasa iyo meela ayuu dhalinyarada ku kulminaya dhalinyarada iyo gabdhaha iyo wiilashu meelaha ku kulmaan buu sameeynaya mufsid alaat alfasad meel walba dhigaya marka afartan qole adduunyada ku nool saalix muslix fasid iyo mufsid marka mufsid muslix waa inaad noqotaa muslix dadku inay noo hagaagaan waa in laga shaqeeyo hagaaga ummadda lidaalika madarasadaha jazaahum allahu khayr macallinka noo yeedhay allah ka jazaaysiiye waa asbaabta mujtamaca islaaxinaysa waxaa ka mida madaarista qur-aanka ka mid ah bal waa ka kow qur-aanku qofku markuu qur-aanka barto qur-aanku qofka iimaanku u biirinayaa qur-aanku qofka xishoodku barayaa qur-aanku qofka akhlaaqdiisu u dhisayaa qur-aan haddii madaarista baa layidhi haddii man fataxa madarasatan aqfala sijnan bay dhahdaan culummadu qofka madarasad qur'aan lagu dhiganaya meel ka furay waxay ka dhigan tahay jeel buu ninka ummadda ka xidhay laana jeelashu meel lagu soo islaaxa maaha meesha ummadda ku islaaxaysa waa madarasadii masaajidda weeyaan in ummaddu masaajidda ay soo gashaana dacwadda u sababa in dadku ay madaarista ku soo xidhmaanna macallimiinta ayaa u sababa daaciguna dadku masaajidda ku soo shubaya sida ay qasabadu biyaha ay barkada ugu soo shubayso ayuu daaciguna maaragtaanay masaajidda ummadda ku soo camiraya macallimkuna dadka ayuu ku soo xidhaya maaragtaanay qur'aanka marka qur'aanka ummaddu islaaxiyaa haddaad aragto ummad qur'aanka danaynaysa qur'aanka baranaysa qur'aanka jecel madaarista u badanayso dadkaas waxay ka dhigan tahay dadnimadoodii baa soo noqonaysa fajazaahum allahu khayr macallimiintana waxaan leenahay ha ka daalina dhigidda qur'aanka aad dhigaysaan ha ka daalina laanna ilaahay baa inaga abaalmarin إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين قرآن كان إلهي عزب وكسينيا ضدنا إلهي عزب وكسينا كرب وقاضيا ضدنا إلهي إسلا كتاب كان هوس إلهي أدقيا ضدنا قرآن كان برا برتا ku dhaqma ummadda ku xakumana ka shaqeeya quraanka sidoo kor u noqon lahaa quraanku kor buu u qaadayaa dadka quraankan intay bartaan gadaal iska dhigay wax kale shariicad wax kale dastuur iyo nidaam ka dhigtana quraanka ayaa la harayo naartu quraanku ku tuuraya القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعل أمامه قاده إلى الجنة ومن جعل خلف ظهره ساقه إلى النار نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها قرآنك وشافع ويان وإرقية إرقية سنة والله أقبل يا وماحل مصدق والضوض ويان عد الضوضنا دودي سوى الله أقبل والله الرميسان نبي يري من جعل أمامه قاده إلى الجنة قفك قرآنك هرتي سكيلا قرآنك الجنة حق يدو قاضيا قفك قرآنك حق دب iska dhigana quraanku naartu ku tuuraabu nabigu عليه الصلاة والسلام
quraanka xagga hore iska dhig macnihiigu waa maxay imaam ka dhiga quraanka had baranayso eed ku dhaqmayso eed umad ku dhaqayso eed maaragtaane ku tarbiyadeynaysid waa inuu ahaada qur'aan laana quraanku waa shariicad dhamaystiran oo ilaahay baa noo soo dejiyey marka ilaahay diinta hay nagu sugo aamiin dhahada لا تكونوا إن معبوا نبي قولي أن تقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا هذا المعني سوها حديث dadka ku yiraahda anu hebelow macaagaan ahay har noqon buu nabi guri yani qof walba iska raaca qofka cidii u timaadaba ay kaxaysato har noqon waa dadka yiraahda buu nabi guri dadku haday wanaagsanaanay haday xumaadaanna maaragtaan iyaga uma ka midnahay ha oran buu nabi guri sida ha noqonina kuwa sida oranaya walaakin wattinu anfusakum ba nabi guri naftiina dariiqa mustaqiimka ku toosiya buu nabi guri dadku haday wanaagsanaadana la wanaagsanaada haday dadku xumaadaanna buu nabi guri ha xumanina buu rasuulku yiri la takunu macaagaan anu hebel baan la jiraa dadkaan la soconnaa caalamkaan la soconnaa bay ku odhanayaan qaarkood war caalamka xaguu socdaad la socoto sheekhe caalamka lala socdaaye caalamka xaguu socdaa caalamku haawiyuu ku socdaa ha raacin ilaahay iyo rasuulkiisa iyo culimmadu warkay kuu sheegayaan raac caalamka waxba kaama gelin caalamku madaxu ku socdaa ilaahay iyo rasuulku waxay ku leeyihiin mijahaaga ku soo soco waad noo imanayeen afaman yamshi mukibban calaa wajhihi ahada amman yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim lugahaaga ku soo soco lagu leeyo kaalay caalamkan la socdaa haddaad tiraahdo waxaad ka dhigan tahay indhali iyo dhegeli ayaan dadka u raacayaa caalamku maanta ma indhaqabee ha ku dayan waa la indhabeelay way dhagabeeleen dadka adduunyada ku nool maanta meel kale u socdaan raacin cid walba ha raacin dhangaagaale ha noqon cid walba iska raaca ilaahay rasuulkiisa kitaabkiisa sunnada nabi maxamed raac warka culimmadu ay kugu yeedhayaan baaqa culimmada ajiib waad liibaani adduunkan iyo aakhire kuwa ilaahay nabiga raacay haynaga yeelo insha allah dhahada maasha allah ku dadaala khayr baa inoo muuqda khayr baa ifaya zaman wanaagsan baad moodaa inuu zamankan yahay runtii sida ummaddu khayrka ugu soo jeesatay innakana waxaan rajaynayaa ilaahay inuu khaatimada inoo hagaajiyo waxaa khayran sheegaynana ilaahay inuu ka yeelo ikhlaas oo maalinka qiyaamahana ilaahay naga abaalmariyo